بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته dhammaan daawadayaasha ku xiran channelkayaga iyo boggayaga waa munaasabadii ciidul adxa sanadkan aan joogno 2021 ama 1442 hijriga markay tahay maadaama ay berri ciid tahay waxaan rabaa mar labaad inaan ka hambaliyeeyo munaasabadda ciidda waxaan rabaa axkaam kooban oo ciidan la xidhiidha inaan si kooban u dulmaro ciiddu ma cusba axkaamteedana inna waa ciidulfitriga la wadaagtaa inna iyaday u gaarta saa darteed daliil iyo axkaam badan sheegistaankeeda iyo faahfaahin uguma talagelin kelmaddan waxaan ugu talagalay si kooban inaan u dulmaro wakhti kooban oo ah xasuusin ama boorka jafid axkaamtaa taqiina inaan marar badan ka soo hadalleed maqasheen marka koobaad walitukabiru allaha calaa maa hadaakum takbiirta ciiddani waxay leedahay laba takbiirood mid mutlaqa mid aan wakhti ku xirnayn iyo mid wakhtiyo gaara ku xiran qoraxda habeenka ciidda oo caawo kalaa markay dhacdo ay ciiddu soo gasho ilaa salaada laga tukado ciidda laga galo takbiirtu way furan tahay in la qaado allahu akbar allahu akbar allahu akbar kabiira wixii ka dambeeya salaada ciidda maalinka ciidda iyo saddexda maalmood ee ka dambaysa ilaa salaada casar ee ugu dambaysa oo ku beegan jimcada salaada casar maadaamay ciiddu talaado tahay arbaca khamiis jumca salaada casar ee jumcada salaadaha faradka gadaashood baa takbiir in la qaado salafka iyo saxaabada iyo aahaarta ka sugan taa waa masalada koobaad masalada labaad takbiirta sida loo qaadaya si gaara ma jirto haddaad takbiirta keliya ku daysaan haddii alxamdu lilaahi laa ilaaha illaahu iyo salliga iyo subxaana allaahi lagu daro intaba waa la ogol yahay arrintu way fududahay waa sahal haddii keli loo qaado iyo haddii jamaaco loo qaado labadabana waa furan tahay wax daliiloo reebaya ma jiro waxa imadii iyo culammadii salafka waa bidca tirina maanan arag bal imaamu shaafici rag lamid a hadalkooda wuxuu u muuqdaa in jamaaco la ysula qaadi karo inay qabaan oo yidhaahdeen saas darteed takbiirtu qaabkii la rabaa loo qaadi karaa erayada la qaadayna kuwa gaara ma laho baabku waasax weeye sidaasayna u qaybsantaa mid wakhti aan lahayn gaara oo ilaa salaada laga galaa iyo wakhti kooban ku xiranoo ciidan carafa u khaas ah ama adxada u khaas oon fitrigu lahayn oo maalinka ciidda baaqigeeda iyo saddexda maalmood ee ciidda ka dambeeya ayaamu tashriiqa ah in salaadaha faradka gadaashoo takbiirta la qaadaa masalada saddexaad in raba inaan baraarujiya waxaa weeye maalinka ciidda ah iyo saddexda ka dambeeya lama soomi karo oo nabigu wuxuu ku tilmaamay ayaamu aklin wa shurbin wa dikrullaahi dikri ilaahay iyo cunno iyo cabbitaan weeye ciidday ka mid yihiin marka dhinaca soonka la yidhaahdaa farad iyo sunno midna lama soomi karo keliya dadka xajka aaday ee hadyi laga raba aan hayninna baa loo ogol yahay saddexda maalmoodee ciidda ka dambaysa inay soomaan maadaama qur-aanka lagu yihi 3 ayaamin fi lxaji saddexdaa maalmood way ka dhigan karaan xadiidkii xabsuuna ku cadyahay saddexda maalmood soonkooda inaan la ruqsaynin ilaa qofkaa hadyiga aan heli karin maahan saa darteed saddexda maalmood ee ciidda ka dambaysiiya maalinka ciiddu soon ma ansaxayo lamana ogola waa maalmo ciid oo cunno iyo cabbitaan iyo dikri ilaahi loogu talagalay masalada saddexaad ciiddani udxiyo in la gowracaa sunno ah udxiyada la gowracayana maalinka ciidda ah marka salaada la soo tukada kadib
ilaa maalinka 13 ee sanadkan jumcada ku aadan inta aanay qoraxdu dhicin weeye wakhtigeedu. saas darteed maalinkaa ciidda ah haddii salaaddii tukashadeedii iyo noqoshadeedii iyo dhaqdhaqaaqii magaaladii iyo ciriiri jiro kaama tegaya wakhtigu maalinka ku-xigee 11aad 12aad 13aadba adxiyada ama xoolaha carafada waa la qali karaa. saas darteed waa wax fiican in la qalo, sharcigaa ku dhiirigeliyey. ilaahay agtiisa waxa wax ka ahna hilibkiiyo oo dhiigga maaha, waa alla ka cabsiga iyo ugu dhowaanshaha dartii loo sameeyey, sida qur-aanka uu la yanaana allah luxuumuha walaa dimaa'uha walaakin yanaaluhu taqwaa minkum. axaadiidta fadliga gaarkaa u sheegtay oo intaan dhiigu dhulka ku dhicin buu carshi ilaahay ku dhacayaa iyo tiri intaan garanaya waxba kama ansixin. inay sunno tahay way sugan tahay, waxa sunanka iyo cibaadaadka ajri in laga helo ilaahay loogu dhowaayana way sugan tahay, laakiin qadar go'anoo ajirka iyo ajirkaasaa laga heli leh intay xasuustayda iyo garashadaydu tahay xadiid kuma ansixin. xadiidka sheegaysana dhammaantood waa dicaaf oo ma sugna. masalada xigteen raba inaan idhaahdo shuruuda udxiyadaasi waa 2 shardi. wakhtigeeda in la ilaaliyo marka laga soo tago labaan ku soo ururin karnaa: in da'dii sharciga ahayd ay gaadhaan neefkani, iyo in caabihii mamnuuc ahaa uu ka badbaado. labadaasaa la doonaya. da'da sharcigee uu gaaray waa inay tahay ama inuu ilkihii intuu ritay u soo baxeen, ama inuu ilkihii ritay. xooluhu dabcan waxaa lagu sakayn karaay waa al ancaam, lo iyo geel iyo ari waaye. shimbiraha iyo digaaggu udxiya ma galaan, waa lo iyo geel iyo ari. lo'da iyo geela iyo ariga riyaha ama ari cadka la yidhaahdo waa inuu ilkaha rito oy u soo baxaan. ariga qaybta kale ee idaha ama soomaalida qaar madax madowda ay yidhaahdaan waa inuu ilka rito buu ku gudayaa. kadib intay ilkahu ugu soo baxaan, geela waxay yidhaahdaan 5, lo'dana 3, ariga riyahaana sanad inuu dhammaysto. laakiin sharcigu isda' kuma xirinee dadku curfigoodii iyo qiimayntoodii xoolaha ay ka arkeen unbay ku qiimeeyeen da'dii, waa inay la soo ilka baxaan. neefka arigii 1 qof iyo 1 qoys buu ka gudaa. neefka lo'da iyo neefka geela ahna 7 qof ama 7 qoys buu neefkiiba ka gudaa. udxiyada marka la gowracayo waa in lagu gowracaa niyada udxiyada, bisinkana loo qabtaa. udxiyadu waajib maaha, waa sunna. qofkii sameeyana waa wanaajiyey, qofkaan samaynna waxba dhib ma laha. intaasna si kooban axkaamtii udxiyada iyo ciidda la xiriirtay wey. salaadda ciiddu waa salaadihii ciidahee taqineen 2 ragcadood weeye. allahu akbar bay ka bilaabataa, assalaamu calaykumna way ku dhammaataa. inta kale salaadahay kala mid tahay, hal arrin marka laga reebo. takbiirta 2 salaadood ee ciidaha ah markii allahu akbar la xidho 7 jeer oo kale ayaa lagu celiyaa. ragcadda labaad marka loo soo istaagay allaahu akbar aad dhahda kadibna 5 jeer baa takbiirta lagu celiya allahu akbarta. qofkii xasuustee sameeyana waa sida wanaagsan. qofkii halmaama ama qayb ka tagana ama imaamkaba soo gaadha isagoo qayb dhaaftayna dhibaato male, inta kale ay salaadiisa ku asaxaysaayoo sunno wey. sida ciidda kale ciidul adxadu waxay leedahay khudba. salaada qiraa'ada faatixada iyo suuradda ka dambaysana kor baa loo akhriyaa. khudbada in la joogiyo in laga tagaayo maadaama ay dambayso dadku way joogi karaan wayna ka tegi karaan. intaana si guud axkaamtii weeye. ciidda dhar quruxsan
iyo dhar cusub in loo xidhaayo waa sunno in laysu qurxiyana waa sunno meel bannaana in lagu tukado laysugu tagaa sunnaa hadday duruuftu diiddana masaajidda waa lagu tukan karaa hadday duruuftu intaa kaba sii adkaatana guryaha iyo qoysasku way ku tukan karaan qofkuna keligii iyo bilaa jamaaco waa tukan karaa si munaasabadii waagii aad u adkayd ee koroonahan laysu iman karin aan axkaamta wakhtigeeda uga hadalnay intaasaan kelmaddeeda ku soo gaabinaya si kooban axkaamta ciid iyo udxiyada khayrka allahina waafajiyo cibaadaadkana ha lagu dadaalo dhammaantiinna waa mahadsantihiin mar kalena ciidukum mubaarak asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu alxamdu lilah wahanaau lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi waasxaabihi wasalama tasliima amaa bacd dariskeennan u dambeeya ramadaantan waxaynu ka hadlay in shaa allahu sakada loo yaqaano sakaatu lfitr wa sakaatu lbadan aw sakaatu alru'uus aw sakaatu alriqaab afarta magacba way leedahay sakada ramadaan marka laga afuro la bixiyo ama jidhka laga bixiyo ama madaxa ama qoorta 17 qodob baynu ku soo ururin doonaa insha allahu axkaamteeda ama su-aalo aynu ka dhigno sakaat fidri maxaa looga jeedaa waa sadaqo la bixiyo marka ramadaan laga afuro qadarkeedana aynu sheegi doonno insha allah muddadee la waajibiyey waa sanadii labaad waxaa la isweydiin karaa xukunkeeda ma sunnaa mise waa faral mae waa faral sida sakada xooluba faral ay u tahay ayay iyaduna faral u tahay xadiidka saxiixa ibnu cumar uu warinayo ayaa daliil u ah farada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam zakaata alfidri min ramadaan saacan min tamrin aw saacan min shaciirin calaa kulli cabdin calaa kulli xurin aw cabdin dakarin aw unhaa min almuslimiin nebigu wuxuu waajib ka dhigay sakada ramadaan marka laga afuro loo yaqaan sakaat fidriga waana saacana waynu sheegi doonaa qadarka uu yahay waa timirtii iyo heedda bahasha la yidhaahdo dadka laga bixinayaana waa qofkii xorta ahaa addoonkii labkii dhadigii muslimiinta o dhan su-aasha kale waxa weeye saddexaad maxaa ku jira ama siraha ku jira in la qaado sakadan laba faa'iidaa ku jira midna mujtamacay usoo noqonaysaa faa'iido midna qofka nebigu wuxuu waajibiyey sakadan waa farada rasuulu llaahi zakaata alfidri duhratan lisaa'imi min allaqwi warafath wa ducmatan lilmasaakiin masaakiinta gurmad bay u tahay oo maalmaha xoolo badan bay helayaan siiba maalinta ciidda sadaqadii marka loo soo ururiyo qofkii soomanaana ilaahay wuu ku nadiifinayaa markaa kii bixiye kii la siiyey labaduba way ka faa'iideen sakadan yaa laga bixinayaa waxaa laga bixinayaa qof kasta oo muslima waayo calaa kulli muslim buu nebigu min almuslimiina markaa qofka bixinayaana waa inuu helayo qofkan kalena waa inuu muslim yahay ama qaangaar ha ahaado ama ha yaraado ama ha weynaado agoon ha ahaado ha waalaado qof walba waa laga bixin waxaa culimmada qaarkood ay isweydiiyaan qof ilmaha yara urjiifka caloosha ku jira laakiin daliil ma laha kaasi qowlka raajixayna waxa weeye inaan waxba laga bixinayn inkastoo cusmaan ibnu cafaan iyo axmed ibnu xambal iyo qolyo caynkaasi ay yidhaahdeen waa laga bixinaya haddana qowlka raajixahay waxa weeyaan ibnu mundirna ijmaacba uu ku sheegay inaanay ilmaha caloosha ku jira ku waajibayn ifkaba umuu soo bixin sakadan iyada ah ma loo shardiyaa sidii xoolihii nisaab in maalan qofku nisaab wax sakagala haysta waxba looma shardiyo liannahu qaala sala allahu calayhi wasalam cala almuslimiin muslimiinta oo dhan buu caam yeelay marka qofku inuu xoolo saka xoolo uu ka bixiyo haysta waxba shardi maaha isagunbaa loo shardiyay habeenkaa iyo maalintaa waxa uu cunaya wax ka soo hadha inuu haysto dayn haddii qofka lagu leeyahy sakadan miyay hor joogsanaysaa maya addaynu lmu'ajal laa yamnacu wujuuba zakaat alfidr sakaat fidrigii ma hor joogsanaysa haddii dayntu wakti leeday oo aan iminka lagu haysanin haddii lagu haysto laakiin dee waad iska bixin qadarka waajibaya waa intee saac baa ku sugan xadiidka rasuulka
sala allahu calayhi wasalam saacu wuxuu ahaa wax sida dhiilkoo kale ah oo lagu miisan jiray berigaa hore raashinka laakiin markii la qiyaasay qadarkiisa waxaa lagu tilmaamay inuu yahay 2176 garaam inagu laba galaan iyo bar baynu bixinaa ama 2 kiilo bar wayba ka badantay ma laga badin karaa mise waa in lagu xadidaa un saaci wuu ka kordhin karaa qofku ilaahay baa wuxuu yidhi faman tadawaca khayran fahuwa khayrun lahu rasuulkuna sala allahu calayhi wasalam wuxuu ku yidhi ninkii sakada bixinayay ee bixiya wixii lagu lahaa wax ka weyn ama ka shilis wixii aanu kugu lahayn noocaasuu ahaa kana wuu ka weyn yahay laakiin waa kaa aqbalaynaa ilaahayna wuu ka ajir siinaya sakadan iyada noocyada laga bixinayaa waa noocee raashinka waxaa laga bixinayaa ilaa 7 nooc oo waqtigaa laga bixin jiray iyo wixii la mid ah hadda timirta heeda sabiibka caana booraha baasha la yiraahdo qamadida sareenka garawga ama masagada intaasaa laga bixin jiray berigaa hore imikana dee bariiskii iyo baastadii iyo daqiiqdii iyo timirtii iyo waa laga wada bixin karaa wixii aan ahayn saliidda iyo sokorta qodobka 11aad qiimaha ma la bixin karaa maya lacagnimo laguma bixin kara waa raashinuun nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu ku bixiyey raashin dadkana fara inay ku bixiyaan xikmadda wallaahu aclam miskiinkaa jecel weligiiba ha jeclaado wuxuu nebigu jeclaadun baynu jecellahay markay laba arrimood taagan tahay adiga dantaada iyo danta miskiinka dee diin ahaantaada horeynaysa faralku siduu sax ku yahay unbaad ku fulinaysa nasiib wanaag innagana dee masaakiintu maba diidaan iminka raashinoo baahi baa jirta baahidiiba aada u badanba goorma ayay sakadani waajibaysa muslimiintu waxay isla waafaqsan yihiin habeenka ciidda mar haddii la afuray ila min alfidri buu nebigu marka laga afuray min fidri ramadaan kol haddii ramadaan laga afuray iyo faradaba isku xidhan wuu waajibiyey waqtiga laga afuro ramadaan markaa kol haddii habeenka ciidda la gaadho waa waajib sakada iyadaa ee sakaat fidrigaas waqtigaasay waajibaysaa waqtigaa ay waajibka tahay baana fiican in la bixiyo yowma alciid ayaa asxaabtu leeyihin maalinta ciidda aimada shaaficiyada waxay leeyihiin maalinta ciidda kol haddii la yidhi dee subaxa un kuma ega ilaa maalinka oo dhan waa la bixin karaa oo xataa intii la tukaday kadib waa la bixin karaa cala alcumuum sida fadliga badani waxa weeye waqtigu nebigu bixin jiro oo ah intaan ciidda loo dareerin sakadan iyadaa ma laga sii horraysiin karaa waqtigaa dee horta sida afdalkaa waynu soo tilmaannay laakiin culimmada in badan oo ka midii waxay leeyihiin kol hadday saka tahay sakaduna 2 sabab ay lahayd sababkii hore ramadaan buu ahaa sababka labaadna ciid buu ahaa marka ramadaan ay soo gasho ama ramadaan dhexdeeda waa la bixin karaa qayb ka midii waxay soo qaadanayaan salafuna saalix iyo asxaabta qaarkood oo bixin jiray sakadan 2-3 cisho marka ay ciidda ka hadhay 2-3 cisho adigu waxay u badan yihiin in la sii qadimi karo bisha dhexdeeda afdalkun ku dadaal oo ah subaxa ciidda sakadan iyada ayaa la siinayaa waxaa la siinayaa fuqarada iyo masaakiinta labadaa qolaa waqtigii nebiga la siin jiray kuwaasaana loola gurmanayaa sidaasaanay muslimiintu isku waafaqsan yihin ee waxba lala raadsan maayo 8 qolo ee aayaddu ay sheegtay kuwii daymoobay iyo kuwii islaamka lagu soo dhaweynayay waxaa wax badan ka gaari maysee labadan qole aada u xayraankayn hortaagan fuqarada iyo masaakiinta kuwaasaa lagu aamusiinaya lagu khaarajinaya sakadan yaan la siinaynin haddaynu aragna ciddii la siinayo 5 qolo adigu markaad bixinaysa 5 qolo siin maysi 5 qolo ma siinaysa ama aynu nidhaahnaba 6 qolo qof horta waxaysto oo dee isagu iska ladan lama siinayo arrintaas waa yaro qaladoo innaga qof iskaba ladan baa la siiya markaasuu isna iskaga bixiyaa oo mid kaleoo iska ladan siiya markaa waa la isku wareejiyaa sax maaha taas qofku kol haddii uu iska fiican yaho waxaysto masaariiftiisa haysta lama siinayo gaalkiina lama siinayo waalidkaaga ma siinaysid aabbo iyo awowgo hooyo ayeeyo dadkaa waalidiinta ku ah carruurtaadana ma siinaysid
carruurtaadu dee haddii ay waxla yihiin sidaada kale waxusii sadaqadii sunnaha ahayd sii carruurtaadi iyo dadkay sii dhaleen oo dhammi waa kuu carruurun waxaan la siinaynin oo kale xaaskaaguna masaariif bay kugu leedahay taasay ku kaaftoomaysaa laakiin sakaatu fidriga ma siinaysid gabadhu ma siin kartaa ninkeeda hadduu baahan yahay iyada haabaa la leeyahy liannahu kuma waajib kuma aha masaariifta ninkeedu waajib kuma aha waa 5 qolo meelaha taqriiban marka la isku soo celiyo sakada yaan la siinaynin halkaasaynu kaga baxnay markaynu nidhi gaalkii waxaa ka mid a murtadkii hadduu midkani diinta caayo kan ardaaga kula jooga istaqaanaa diintu buu caaya ilaahay buu caaya waaba reerkiina waa in adeerkaaba lama siinayo meel kale ma la geyn karaa miyiga iyo magaalooyinkaa kale baahan iyo waxaa la isku waafaqsan yahay haddii halkan sakaat fidriga lagu bixinaya baahidu ku yartay oo dadku iska ladan yihiin waa la qaadi karaa sida dadka debadaha jooga oo kale dadkeena debadaha jooga waa laga yaabaa qofka hadduu yidhaa intan raashino qaado inuu idhaahdo raashin uma baahniye meelaha gee oo dadku ay iska wada haystaan bariiska ayaa waxaa la yara cuncunaya taa waa la isku waafaqsan yahay saa daraaddeed dadka debadda jooga oo kale halkan ay usoo dirayaan lacagta raashin baa lagu iibinayaa fuqarada iyo masaakiinta la siinaya laakiin dad baahani kol hadday kula joogaan sida fiicani waxa weeye inaad halkan ku bixiso aada joogto dadka laga bixinaya halkay joogaan waa in lagu bixiyaa kol hadday fuqarada iyo masaakiintu halkaa joogaan laakiin waxaa culimada qaarkood sheegayaan haddii dad qaraabo ah oo aada usii baahani meel kaa durugsan ay joogaan waa loo diri karaa sekadani haddii ay ku dhaafto ma la soo qalaynayaa mise saasay ku dhaaftay maya waa waajib maalintii ciidda haddaanad bixinin oo ay ku dhaaftay waktigaasi fursaddaasi ku dhaaftay faral lagugu leeyahay wey waa sidii sekada xoolaha oo kale dayntu ma duugowdo nebiguna wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam fadaynullaahi axaqu an yuqdaa daynta ilaahay baa ku habboon in la bixiyo markaa qofkiiyuu u qaadanin hadduu maalintii ciidda iyo rabadaan iyo sakaatu fidrigiisa eegay in la iska daynayo ee waa inuu qofku markuu xusuusto bixiyaa dadkana sidaa loo sheegaa oo qofku uu ka gaadhsiiyaa xataa hadduu subaxii ciidda ilaaway maalinka ciidda waa inuu ka gaadhsiiyo faralkuna in loo dhaqsadaa buu mudan yahay oo la ilaaliyo markaa 17 qodob ama 18 ayaynu ku soo ururinaynaa wixii su'aala ka iman lahaa sakaat fidriga وهذا ما أقوله وأستغفر الله دنبجنا الله ضعف كي والدكنا الله ضعف خاتمنا الله ينوه جاتشي عسي شرفنا الله ينسيه عبادة الله ينجا أقبله تتكبكنا الله عافية مراد كأنه خير لنا الله ينسيه تدي الدنيا وحينه هيننا الله ينوه بركيه هينوه جاتشي صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك